mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo isugu jira oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Jarar ayaa soo kormeeray beeraha babaca ee laga hirgeliyay duleedka degmada Awaare oo ah dhul ku habboon falashada beeraha waxayna ka mid tahay qorshayaasha xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qaadatay sanadan aan ku jirnay 2010 waa tirsi taariikheedka dalka Itoobiya ee babaca oo macnaheedu yahay biyo baad cilmi iyo caafimaad oo ah mid lagu dhimayo saboolnimada isla mar ahaantaasina looga faa'iideynayo shacabka danyarta ah. Haddaba beertan ayaa waxa ka baxa dalagyada qaybahooda kala duwan oo ay ka mid yihiin sida galleyda yaryaraha Suudaan garaaska alfa kuna fadhida dhul baaxadiisu dhan tahay 300 oo hektar iyadoo dhul beereedkani loogu talagalay in laga faa'iideeyo 80 qoys lana dejiyo halka dhismayaashii loogu talagalay in la dejiyo qoysaskana ay marayaan heer gabagabo macal fiidloodyadii loogu talagalay xoolaha qaybahooda kala duwan. Waxaan ugu horeyntii halkaasi wareysi kula yeelanay gudoomiyaha gobolka Jarar Mudane Cabdi Cali Mataan isla mar ahaantaasina ka warbixiyay xaaladda guud ee beertan ay sheegayna halka ay marayaan dhismayaashan loogu talagalay in la dejiyo in ka badan 78 qoys. waxaanu kormeer ku nimid degmooyinka Awaare iyo Caale iyadoo aanu xaqiijinaynay nidaamkii baabacada iyo shaqooyinkii kale ee joogtada ahaa hadday tahay dhanka caafimaadka waxbarashada shaqo abuurka ama muxuu ahaa dilaad mahayo isbedelka nololeed ee bulshada xaggeeda ah iyo muxuu ahaa arrintan baabacaba. marka hadda waxaanu taaganahay degmadii Awaare booskan taaganahayna waxa weeye booskii loogu talagalay in muxuu ahaa laga sameeyo dib u dejinta ama baabaca barnaamijka baabaca laga hirgeliyo waa ceelkii ku yaala dooxada Caraar Buur runtii meesha markaanu fiirino site-ka la xushay waa meel runtii ku habboon gurigii la dhisay ee baabaco iyagana waxa weeye site-kii loogu talagalay ku fadhiyaan biyihii ceelkana way helaan dhismihiina meel ku habboon baa laga dhisay. sidoo kalena waxa ayna dhankooda ka hadlay gudoomiyaha degmada Awaare Mudane Shaafi Axmed Khaliif iyo sidoo kale madaxfiisaadka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmada Mudane Mukhtaar Maxamed maadaama qorshihii sanad miisaaniyadka 2010 ay ahayd in degmo walba soo ay samayso beertii kabineedka oo intaas hektar waa taan qaadanay beertii kabineedka oo qaadanay way beertani marka insha Allah hadii la yiraahdo waxay noqon doontaa in wax soo saarkan aan sameeyno inaan si loo jibaarnay noqon doonta golaha kabineedka hadda wuxuu degan yahay beerta baabacada hadda aan shaqada ka wadno dhex degan yahay si aan dabagalkii iyo ma garan shaqadanada iyo xilgudashadii aan u sii laban laabno ilaa xilligana maamulku wuxuu qaybsan yahay wax beertan ka shaqeeya iyo wax guriyihii baabacada dhiso maamulka degmada u qaybsan yahay. isku soo wadoobo oo qorshahani babaca oo halgudhagiisu yahay mid xoog lagu saarayo biyo baad cilmi iyo caafimaad ayaa mid laga wado guud ahaanba degmooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laguna dhimayo saboolnimada si loo gaadho isku filnaansho waara. Bashiir Cabbaas, telefishinka caalamiga ee STV degmada Awaare ee gobolka Jarar.